بسم الله الرحمن الرحيم qodobada barnaamijkan aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah iyadoo caawa uu galay habeenkii 23aad dagaalka bariga dhexe ayaa saacadihii ugu dambeeyay Iiraan waxay xoojisay duqeynta ay ku hayso Israa'iil waxaana mar kale ay fulisay weerar kale oo qayb ka ah muujadaha howlgalka ballanqaadka dhabta ah waxaana la beegsaday saldhig military iyo deegaano ku yaal dhanka waqooyiga geesta kale wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ayaa isna ku andacoonaya toddobaadkan inay xoojinayaan weerarada ka dhanka ah Iiraan iyadoo xilligan laga soo warinayo magaalooyin kala duwan oo ka mid ah Iiraan duqeymo xagga cirka in lagu hayo afayeenka aqalka Koongareeska waddanka Mareykankuna wuxuu isna sheegayaa in ay gaaraan ujeedooyinka dagaalka inkastoo weli uu sheegayo in xaaladdu ay sii soconayso dagaalka sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa Xisbullah oo weerar ay ku qaaday ciidanka Israa'iil ka warbixisay ruushkana si adag ayuu uga hadlay dagaalkan waxaana uu sheegayaa weeraradan ay wadaan Mareykanka iyo Israa'iil natiijada inay dib iyaga ugu soo laaban doonto dhamaan wararkan iyo qodobo kale iyo wixii warah ee soo kordhay intaynu hawada ku jirno iyo falaqayntii ayaan idinkugu haynaa barnaamijka wararka caawa Maxamed Maxamuud Cadde wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira maxamedan ku bilowno qodobada wararka ugu waaweyn ciidamada ilaalada kacaanka ayaa sheegaya in ay dufcadii 72aad ee weerarada xagga gantaalada ah ee ka dhanka ah Israa'iil iyo ciidamada badda ee Mareykanka ee la yiraahdo ciidanka badda ee shanaad ayaa la meel mariyay ciidamada ilaalada kacaanka waxa ay sidoo kale sheegayaan dufcada 72aad waxay ahayd mid aad u awood badan oo khatar badan ay ku jiraan gantaalada qadar iyo cimaad loo yaqaano oo nishaabkooda sugan yahay waxaana lala beegsaday ciidamada cirka Israa'iil xaruntooda iyo xarun waqooyiga Israa'iil ku taala sidoo kale waxaa la sheegay in weeraro iyo nidaam difaaca labadaba in la beegsaday Israa'iil wakaaladda wararka ee Tasniim ayaa soo xiganaysa ilo militariga waddanka Iiraan oo sheegaya in dowladda Mareykanka ay la kulmin doonto jawaab aanan hore loo arag haddii ay weerarto jasiiradda Kharq ilahaasi ayaa sheegay in Mareykanka uunan haynin awood uu jasiiraddaasi kaga dagaalami karo khasaare xoog lana uu ka soo gaari doono aan weligeed la arag isla markaasna waxaan xasilooni darro uu ku imaanayaa xagga amniga biyo mareenka baabmandib ee badda cas oo ayadana ka mid ah khiyaaraadka kooxaha gacan saarka la leh waddanka Iiraan madaxweynaha waddanka Iiraan Mas'uud Pezeshkian oo telefoon kula hadlay ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa ku nuuxnuuxsaday in dagaalka afjaridiisa ay u baahnaan doonto in si dhaqso ah weerarka looga daayo Iiraan loona xaqiiqsado inaan mar dambe lagu noqon weeraro in lagu qaado Iiraan wasiirka arrimaha dibadda waddanka Iiraan Abbas Araghchi ayaa sheegay Iiraan inay sii wadi doonto inay nafteeda difaacdo iyo muwaadiniinteeda iyo gobolkana ay ka difaacdo dalalka dibadda ka soo duulay waxayna intaas ku dartay waxaan qoraynaa baa la yiri bog cusub oo taariikhda gobolka bariga dhexe waa sidoo hadalka u dhigay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan wasiirka gaashaandhigga waddanka Israa'iil Katz ayaa sheegay in weerarada ka dhanka Iiraan toddobaadkan in aad loo dardargelin doono toddobaadkan waxaan dardargelin doonaa buu yiri duqeynta ay qaadayaan ciidamada qalabka siga ee waddanka Iiraan iyo militariga waddanka Mareykanka oo ka dhana goobo badan oo ka mid ah waddanka Iiraan iyo kaabayaashiisa oo isku haleynayo oo weerarku wuxuu noqon doonaa mid si weyn loo ballaariyo loona dardargeliyo mar uu qiimeynayay howlaha militariga Israa'iil ay wadaan madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump nin ka tirsan xisbigiisa jamhuuriga ayaa u muuqda in si toosa ana caqabad loogu noqon doonin madaxweynaha Mareykanka ama uu ugu noqon doonin madaxweynaha Mareykanka iyadoo colaadda laga yaabo bariga dhexe ka socota inay jiidanto afhayeenka aqalka hoose Mike Johnson ayaa sheegay in howlgalka militariga uu si dhaqso ah ku dhamaan doono waxayna ila tahay buu yiri howlgalkii aan ku talagalnay in
intiisa badan lasoo afjaray ayuu u sheegay mid ka mid a wakaaladaha wararka ee wadamada reer galbeedka. waxaan isku dayeynaa buu yiri gantaalada ballistikada ee wadanka Iran iyo warshadaha laga soo saaro iyo maraakiibtooda ciidanka badda in la burburiyo. hadafyadaasna intooda badan hadda waa la fuliyay. Johnson ayaa hoosta ka xariiqay in Iran ay awood u leedahay inay khatar geliso maraakiibta maraya marinka Hormuz. dagaalkana waxaa laga yaabaa inay xoogaa jiido oo waqtigiisa u dheeraado, gaar ahaan xulafada wadanka Mareykanka ay intooda badan hadda codsiyo isdaba jooga oo ah in gacan la siiyo usoo diray madaxweynaha Mareykanka. wuxuuna sheegayaa sida ugu dhaqsaha badan ayaan xaaladda kusoo celin doonaa degenaansho. waxayna ila tahay arrintaasi si dhowaana in loo malmarin doono. wasiirka arrimaha dibadda wadanka Ruushka Sergey Lavrov ayaa ku nuuxnuuxsaday in cawaaqib xun uu ku imaan doono Mareykanka iyo Israa'iil falalka ay bariga dhexe ka wadaan iyo weli howlaha ay waqtiga dheer ka shaqeynayeen. wakaaladda warka Sputnik la yiraahdo ee wadanka Ruushka ayaa soo xiganaysa Lavrov oo sheegaya marka la gudbo in propaganda badan la afuufay cawaaqibka waxa Mareykanka uu ka sameynayo gobolka bariga dhexe iyo iskaashiga uu Israa'iil leeyahay ayaa cawaaqib xun ka dhalan doonaa. waxayna noqon doontaa mid mar dambe ka daba timaada oo xaalad culus ku keenta. waxaadna moodaa buu yiri in marka lala tacaamulayo gobolka bariga dhexe in la isticmaalayo mabaadii in tallaabo la qaadayo aan kala soc lahayn oo weeraro ah. arrintaasna ma aha mid la aqbali karo. waatahay maxamed, waa mahadsan tahay. daawadayaashuna way mahadsan yihiin. mar kale ayaan soo dhaweynaynaa. daawadayaal waxaan u gudbaynaa falaqaynta wararka iyo wixii warah ee degdega ee soo kordha. maxamed, aan ku bilowno arrinta dagaalka aynu ku bilowno. Iiraan waxaad moodaa in ay xoojinayso weerarada. warbaahinta Israa'iil waxayba sheegaysaa in saacadihii lasoo dhaafay in ka badan 30 gantaal lagu soo riday Israa'iil oo meelo kala duwanna khasaare u ka dhashay, dab iyo burburna lasoo warinayo. meelaha qaarkoodna ambalaasta loo yeeray, inkastoo ilaa hadda aan lasoo bandhigin khasaaraha ka dhashay. weeraradan Iiraan ay xoojinayso iyadoo duqeynta ay ku socoto, maxay khubaradu ka sheegaysaa? dabcan waynu arkaynaa wararka ka imaanaya Iiraan ee sheegaya in magaalooyin kala duwan oo Shiiraas iyo Teheraan ay ka mid yihiin duqeyn inay ku socoto. su-aashaas waa su-aal aad iyo aad u fiican. dhinaca Mareykanka iyo Israa'iil duqeyn ayay ku wadaan magaalooyinka waaweyn iyo nawaaxigooda ee wadanka Iiraan. Iiraan ayadana dhankeeda waxay wadaa weeraro isdaba joog ah. waxaa la marayaa dufcadii 72 ayaa la marayaa. dagaalka ay ugu magacdareen wacdu saadiqi afraad. waxaana muuqata in wararka ka soo baxaya Israa'iil dhankeeda ay muujinayaan in nidaamkii digniinta degdega ahaa ee loo diri jiray shacabka Israa'iil inta ay gantaalada soo gaarin in hadda fariin loo diray oo leeyahay nidaamkii difaaca cirka oo dhan waxa weeye waa istaagay. muwaadiniinta digniintii loo diri jiray hadda waxa weeye waxtar ma yeelanayso, sababtoo ah dadka markay maqlaan dhawaqa wiishashka ka digay gantaalada ayay ku cariri jireen goobaha. hadda waxa weeye digniin la-aan weeye. qof walba waxaa la rabaa in uu feejignaado oo mas-uuliyadda ammaankiisa ka shaqeeyo. tan kale, duqeynta Iiraan ay qaaday dhowrkii maalmood lasoo dhaafay waxyeelada sida khabirada hadalka u dhigayaan Israa'iil magaalooyinkeeda waaweyn oo Tel Aviv iyo Haifa ay ka mid yihiin loo geystay. waxa weeye waxaan la arag oo la maqal. korontooyinkii, biyihii, noloshii ayaa cakirantay. waxaa intaa dheer in ururka Xisbullahna dagaalka waqooyiga ay ka wadaan iyo gantaalada ayadana culays weyn Israa'iil inay ku keentay. Israa'iil inay hadda shalay ka joogto dagaalka ay ku qaadhay Iiraan, waxaana muuqata inaynan istaagi doonin weeraradaasi joogtada ah. dhinaca Mareykanka weli wadamadii gacan saar kala lahaa ee gacanka ayagana kaabayaashoodii ayaa la duqeynayaa. marinkii Hormuzna hadda cid ku dhici karta oo mari karta ma jirto ilaa ogolaasho la weydiisto wadanka Iiraan. wadamada Iiraan gacan saar kala leh
sida Shiinaha oo kale maraakiibtooda waa marayaan iyo wadamada kale oo aanan khatarta loo arkin. laakiin wadamada Yurub iyo Mareykanka waxaad moodaa in marinkaasi uu ka xirmay. wadamada gacankana hadda waxaad moodaa khayraadkoodii oo dhan xagga shidaalka in hadda soo saaridiisaba la joojiyey maadaama aanan la qaadaynin. marka maraakiibta ay lagu qaado shidaalka ayaa shidaalka lagu soo dari karaa goobaha wax lagu kaydiyo. hadda waxaad moodaa in hadda ay khatartu ay tahay shidaalka lasoo saarayo meel la geeyey lama arko. waxa ayadana isu soo taraysa Mareykanka waxyaabaha af ka sheegayo iyo Israa'iil waxay af ka sheegayso iyo xaqiiqada dagaalka ka jirta waa kala duwan tahay. khabiirada Mareykanka ee xagga militariga ama ha noqdaan kuwa xagga ciidamada sirta ama ha noqdaan kuwa khibradda militariga u leh, kulligood waxay isku raacsan yihiin in Mareykanka iyo Israa'iil inay dagaalkan ku jabeen. waxyaabo waaweyn la filayay iyo khasaarooyin aad u waaweyn. waa gartay. isla arrintaas daynu ku soconno, warbaahinta Iiraan mid ka mid ah wakaaladaha wararka ayaa fariin jees ah oo madaxweynaha Mareykanka ku socota qortay. maxay ku aadan tahay fariintaasi Maxamed? madaxweynaha Mareykanka ma aha keliya in fariintan hadda la diray, inta badanba mar allaaliya markuu hadlo afhayeenka u hadlo ciidamada ilaalada kacaanka uu ku halqabsadaa. waxa uu yidhaahdaa faraha bulshada fariinta aad ku qoraysid ma aha meedaankii dagaalka. meedaankii dagaalka waa la isla joogaa. ciidankaaga iyo howlaha aa wadatidna waxa aa sheegaysa ma meel marin karaan. hadda sida wakaaladda wararka ee ISNA ay qorayso, waxaa lasoo xiganayaa sarkaal aan magaciisa la sheegin oo u jawaabay madaxweynaha Mareykanka hadalkiisii ugu dambeeyey in dowladda Mareykanku ay soo afjari doonto, ay ku dhowdahay dagaalka inay soo afjarto. Iiraan ma aaminsana buu leeyahay bayaanada ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka wax isbedelo oo la taaban karo oo howlgallada Mareykanku ay ka wadaan waddanka Iiraan oo aan aragna anagu ma jiraan ayuu sarkaalkaasi leeyahay. waxa Trump uu ku dhawaaqayo iyo xaaladda dhulka ka jirta iyo xaqiiqada dhulka ka jirta waa kaaf iyo kala dheeri iyo kaan u dhiganayo maaha. Iiraan waxaad moodaa in ay ku gabagabaysay in Trump ay siin doonto 10 lama ilaabaan. Trump ayaa waxa uu sheegay maalintii Jimcihii inuu ka baarandegayo in uu howlihiisa militariga ku ballaariyo dhammaan waddanka Iiraan. mar dambe ayuu haddana waxa uu sheegay in uu rabo xabad joojin inuu Iiraan la galo. haddana waa ka noqday, wuxuu yidhi xabad joojin looma baahna haddaad burburin karta Iiraan gebi ahaanba. waxaad moodaa in madaxweynaha Mareykanka hadallada ka soo baxaya ay isdaba marsan yihiin. waa gartay. waa yahay. maxay kaloo qobrada marka dagaalka ka tiri? hadda waynu aragnaa toddobaadkii afraad baa loo gudbayaa dagaalka. sidaan maysa filim baa la yidhi Netanyahu iyo Trump in dagaalku uu sii adkaanayo, Iiraanna sidaan loo loodin waayey. marka maxay kaloo qobrada ka leedahay? Alexander Dogan oo ah nin mufakkir ah oo Ruusha arrimaha caalamkana la fogura ayaa waxa uu sheegayaa dagaalkan Israa'iil iyo Mareykanka ay bilaabeen waa bilow uun. dagaalkan qaab uu ku istaagi doono iyo si uu istaagi doono ma muuqato. waxaana muuqata dagaalkani in uu saameyn xoog la yeelan doono maadaama uunan Mareykanku marnaba ka tanaasuleynin in uu ku amar taaglooyo arrimaha caalamka. waxaa sidoo kale uu xusay wadamada Ruushka iyo Shiinaha ma ogolaan doonaan inay gees taagnaadaan maadaama uu Mareykanku rabo inuu awoodiisii caalamka oo sii guraysa inuu soo ceshto, in uu Iiraan isku dayo in uu ku meel mariyo waxaanan socon karin. waxaana muuqata sida uu khabiirkaas hadalku dhigayo, Mareykanka dagaalkan waa bilaabay, dagaalkanna uma socdo sidii uu Mareykanku rabay. waxaana muuqata in isbedel xoog leh uu keenayo. isbedelka uu keenayana ay tahay in adduunka ay soo baxayaan awoodo badan oo caalamka maamuli doona. Mareykankana waxaad moodaa in ay burhaantiisa jabto sida uu khabiirkaas hadalku dhigayo. waxaa iyadana sidoo kale ka hadlay khabiiro Mareykana uu ka mid yahay John Mearsheimer oo leh madaxweynaha Mareykanka dagaalka uu bilaabay uu ku khaldamay isagoon istiraatiijiyad fiican haysan. Iiraaniyiinta ayuu aad u ammaanay. Professorkaasi wuxuu yidhi lama yaraysan karo markay timaado xagga sayniska iyo xagga aqoonta.
waxa weeye qoraalada ay sameeyaan iyo xagga ay ka gaareen xagga handisada iyo dhisidda agabka aad ayay u sareysaa. Maraykankana waxaad moodaa agabka hadda la isticmaalayo iyo dagaalka qaabka loo isticmaalayo in la kala duwan yahay. Maraykanku wuxuu rabaa inuu Iiraan ku jiido dagaalkii qarnigii 20aad oo maraakiibtiisa dagaalka inay howlgalaan iyo ciidamadiisa, laakiin Iiraan waxay la timid xirfad kale, gantaalo guuxooda ka dheereeya oo maraakiibtii Maraykanka ee diyaaradaha qaadi jiray iyo maraakiibtii dagaalka kulligood ku qasbay inay cararaan. sidoo kalena Maraykanku wuxuu caado u noqotay inuu ciduu rabo meeshuu rabo ku burburiyo, laakiin asaga aan la dul imaan oon la burburin. hadda 55 xero tiradaas dhegeyso, 55 xero oo militariga Maraykanka oo ku leeyahay gobolka bariga dhexe ayaa mid walba dab la suray. Khasaaraha gaaray iyo waxa dhacay cid ogsoon lama arko, Maraykankana ma qiranayo. tan kale oo ayadana aan meesha ka maqnayn waxa weeye maadaama Diego Garcia ay Iiraan gantaalo la tiigsatay, waxaa la aaminsan yahay oo 3,900 kilomitir ku dhow ama 4,000 kilomitir ku dhow in la gaari karo xeryo kale oo military oo Maraykanka Yurub ku leeyahay. waxaana muuqata in dagaalka marmar ka dambeysay inuu sii bedelayo. weerarka lagu qaaday ay khabiiradu ku sheegeen Diego Garcia in ay tahay dagaalka inuu dardar galay, Iiraanna hadda aan lagu eegi karin inay tahay wadan Maraykanku uu wax u yeerin karo, ay ayadu hadda la wareegtay jihaynta dagaalka. arrintaasna khatarteeda ayay leedahay. way aynu ku soo gabagabayna Maxamed, ruushka Sergey Lavrov hadalkiisa maxaa loo fasiran karaa? dowladda Ruushka dhowr goor oo hore ayay ka digtay Maraykanka waxa uu sameynayo inay shaqeyneen awoodda Iiraan in aynan fari ka qodnayn. haddana aad moodo Maraykanka inuu xaalad khatar ku jiro. waxa ayadana meesha ka maqnayn Maraykanka dhowr goor ayuu isku dayay in uu dowladda Ruushka gacan weydiisto sidii Iiraan looga qaadi lahaa uraniumka ay tayagelisay. warar kale oo soo baxaya ayaa sheegaya oo lala yaaban yahay oo dhinaca Ingiriiska ka soo baxay oo la leeyahay wadahadaladii ugu dambeeyay iyadoo meel fiican ay marayaan oo Iiraan ay ogolaatay in nuclearkeeda go'aamo fiican laga gaaro, ayaa wadanka Maraykanka iyo Israa'iil ay dagaalkan qaaday. Ruushka hore ayuu Maraykanka uga digay in Iiraan dagaalkeeda aan lagu degdegin. haddana sida uu Alexander Dogan hadalka u dhigay in danaha Shiinaha iyo Ruushka ay dayacmaan ma ogolaanayaan dagaalkana inay Iiraan jabto, ma ogolaanayaan wadamadaasi. inkastoo ay hadda saaxadda si toos u taagnayn, haddana ilaha reer galbeedka o dhan waxay sheegayaan ama ay qorayaan wargeysadooda, telefishinadooda iyo ceeb walba in xogta lagu beegsanayo militariga Maraykanka in uu Ruushka siinayo. Ruushka dagaalka Ukraine ayaa intaasoo kale Maraykanku u geysan jiray oo xog la wadaagi jiray wadanka Ukraine. hadda waxaad moodaa waxa af Ingiriiska lagu sheegay tit for tat inay socoto. adiga saa yeesha ayaan yeelayaa, adna saa yeeli jirta anigu yeelayaa. waxaana muuqata dagaalkan laysku raacsan yahay inuu sii ballaaranayo. madaxweynaha Maraykanka warar ka soo baxaya ay sheegayeen inuu dagaalkan xakameynayo ama dagaalkan uu soo afjarayo, in ay dhaaftay arrintaasi inay tahay Maraykanku in uu ku dhawaaqo inuu dagaalka ka baxo iyo inuu dagaalka ka jabo. jabidina waa bilaabatay ay leeyihiin khabiiradu, wax u dhexeeya ma jiraan. Israa'iilna waa loo baqayaa dhowrka maalmood bishan ka haray dagaalkan hadduu sii socdo, duqeynta baaxadda iyo qotada ay ku socota haddii ku socoto, in dad badan oo Israa'iiliyiin inay ka qaxi doonaan magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil. qaxa waa bilowday. Masar waxaa la sheegay dad badan inay u gudbeen. wadaha waxaa la sheegay dad badan inay dhanka Rashrash ay uga gudbayaan wadanka Jordan. dhinaca Mediterranean-kana inay Qubrus aadayaan oo dadku dooman raacayaan. waxay tahaba dagaalkan ayadoo aan qorshe lahayn ayaa la galay. haddana waxaad moodaa
in runtiisii iyo adkaysi inay u baahan tahay dagaalkan uu dheeraanayo ayna jeclaan lahaayeen Israa'iil iyo Mareykanka dagaal yaro kooban laakiin xaalku ma fiicna waayahay wararka ugu dambeeya haddii aynu eegano waxaa lagu soo waramayaa in dhanka Lubnaan duqeymo culus Israa'iil ay ka wado gaar ahaan magaalada Beirut iyo deegaano kale oo koonfurta ku yaal sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in nidaamyada difaaca ee magaalada Tehran ay la dagaalamayaan diyaarado dagaal oo hawada soo galay waa tahay inta ayaa caawa daawadayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkii wararka caawa waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir aynu barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadiin